سان قرح بنا المار مجدين ما من القدومي والله بلا ميدب كان انا ادوس ميدب يا سو baxay mar rabaad hadda ni cabbi hadaan arko wallahi sankan ka qabsanaa ana absaana tabliiq ku ay khamiiskii horeegsi gisana iyo cumaamidiidaad maal cadeey ka qaatay ma qofka maal cadeeyaan ka qaatay markaan qabiis horka dhayso nin qorwad ma iska dhigtay adiga ilaa jigboontiga war ma soo celin hadda maxkamadda dhexdeeda wuxuu ka leeyahay jacaylan ciidan u qabaan u dhaca ciidanka wax ma u dhaca gaf kale waa in xaalad duruufeed ama xaalad nololeed ay haysatay isla markaana walaashiis oo xanuunsaneed lacag uu u baahnaa awgeed uu u dalbaday inuu hantidaas qaato qof aad isaga dhigtay dharcad ma ka dhacday taleefan haddana maalmo kadib ma shaxaaday isla qofkii aad horay u dhacday adigoo aan ogeyn nus dollarkeen war xitaa shilin soomaali ii sheeg mana lagu qabtay ilaa iyo maxkamad taasi waa shaxda xariif magaalo siraaji maxamed axmed kuusow dhibanayaal sakariya yoonis cabdi iyo maxamed cabdulaahi maxamed dhalinyaradan labada ah 22kii bishii 2025 subax ay seminaar u wada socdeen ayuu ku wada helay kuusow wadada beerta banaadir muqdisho waxaana uu isaga dhigay sirdoon gaar ahaan ilaalada shacabka labada dhibane dhinacyada ayaa loo qabsaday moobeeladiina waa laga marsaday iyadoo loo sheegayo in baaris la marinayo 30 daqiiqo kadib ayayna heleen baraaruga ah in la maray maalintan oo ay eber u soo baxday si kastana suurtagal waa noqon weysay in la helo wax tixraac ah waqti kadib mar kale 29kii bishii 9aad 2025 ayaa la isaga hor yimid Sebiano waana dhibane Sakariya Yoonis oo arkay xariifkii ka qaatay taleefankiisa ee eedeysana Kuusow isla markaana shaafta weydiinaya oo amba war u heen qofka uu la hadlayo wax xusuusana ka haysan wixii uu u geystay markiisa dhibanihii shalay la isaga dhigay dharcadka ayaa baraarugay awoodna la soo baxay shaxdana fahmay inay tahay sheeka xariif magaalo ayaa gacanta ku dhigay eedeysana Kuusow soo nawaday ilaa laamaha amniga uu ku soo simay markana dhibana Sakariye isna ma hubeysna sida loo dhacay oo kale subax seminaar u socday anoo meesha seminaarka ka dhacay raadinayo taleefan qof ku hagaay oo idhaawaan laga soo dacway ani yar kala marxaati kala jooga hadda labadeena ahayn oo dhaawaan laga shakii labadiin ayaan naga shakisaya taa dhaadiga hay'adda ka tirsan oo hay'adeena wasugida way dhamataa waxa tus saacadeen in hay'adda ka tirsan taa ku aaminaa yar kala la socdo geeso istaagay kala la socdo askaliis ma ahayn marka yarkiya inta wax uu kusnaa isiri labadooda deeyin hay'addi waaye waxa lagu sameeynaa ma jirtee hore u raac wixii meesha yaal soo tus anna wax isku hubin oo qalad wadankiina meesha magaalada ku dhaqmay waa marka waa raacay oo igee bosh intuu meesha igeen horta taleefanka oo qaado taleefankii ma ka rabtaa hay'adda ka tirsan tahay magaalku waa wada joognaa hay'adda meesha ciidanka u joogan igee oo dhaha waxaas ma jiraan keen taleefanki saas ma aha hay'adda ka tirsan tahay oo ay taleefanka qaado oo iga qaaday oo igee bosh igee darbigeeda meeshan waxa ku yaala jigboonta oo bosh laga ilaaliyo marka waxa isir maadaama meesha jigboonta tahay ilaalada meesha joogan taleefankaada meesha u geynaa laakiin tuug oo ahaayo wax oo meesha geynaa ma jirin taleefankii oo qaaday oo furu idhaa taleefanki idikaara gadaal ugu jiray idikaarada ay soo celiyay taleefanka saas uu ku qaaday marka 30 daqiiqo ama anoo meesha fadhiyo oo isdhaa taleefanki baaris uu ku maqan yahay waxa is erinayo 30 daqiiqo kadib taleefan baaris ku maqnaan karee meeshan ka tag iskaga tag meesha marka darbiga waxa joogay bosh nin oo maqaadi ilaalinaya ninkii u tahay waxa erinayo askariya soo dhaco taleefan ay qaaday oo idinka tirsan ee taleefankeyga 30 daqiiqo inta idin fadhiyo waxbarashada u socday marka wuxuu dhahay wax noo tirsan oo inta soo gala ma jiraan waa lagu gaaday saas marka saas cadeen waxay igu noqotay in ninka uu tuug ahaabo oo taleefanka la tagay laba taleefan oo qaado ani iyo mid kale oo saaxiibkay marka saas aan ku tagay waxa waa booliiska namarka gaawna booliiska wax cadeen oo tuugas ilaa daba galay ah ima siin waa baxay waxa waa marka yar aan aqaano nabad sugid ka tirsan oo ikiska shaqeynaa oo uu soo xiray taliye koox oo joogsay biyaan eerideeda taliya kiiski la wareegay sidii aan kaamiro meesha ku lagu fiirnay waxa aragnay kaamirada qaybta hoos bas wajideen ma la arkeen waa ka tagnay kaamirooyin qaarkood noo haleysnaayeen marka sidii aan ku kala tagnay haddana 28 bis 8aad ninkii waxa arka anoo socdo banaadir isbitaal baadir hortiis waa isdhaafna labadeena oo wacay hadan waxa isdhaa ninku yaqaan waa u noqo laba mar ama waa maalin soonay ahayd soolkii oo waxa la soonaa 10 hore arafo marka waa u laabta khamiis ahayd waxa irhaya ahayd adig niyo wuxuu yiri baahiya ayse $1 ii sheeg $1 ma irsaaw ana alweeno ijeeday
هي شيل Soomaali ii sheeg ma haayo marka codkayaan ka shakiyay 2 bil ka hor la dhacay telefoon weydii lacag wajigiya fiiri koofiyo Soomaaliga imaamad waxaan irniyo adiga waaba ka shakiyay hor qabo warna igu soo celin tuuga taa dhahay hor qabo jigboontiga biyaan geey ilan kiiska meesha uu yaalo marka hore meesha ahayd jigboontiga markaan geey waxaan wactali koox oo marka hore kiiska bilaabay asaa kiiska la wareegay kadib taas saasa loo sii wareejinay laakiin arinta hooya ku daaweynaa baan waa gudoomiye oo marka hore waa dhacay markii labaadna wuxuu rabay inuu farsameeyo oo laba mar maamadiis ma xanuunsan loo bil gudahood laba mar uu tuugno isku daynay oo maama ka xanuunsan ma jirtan kaan waa tuug oo is cadaysto shacabka dhibaatay oo hay'adda magaceedan ku dhibaatay dadka adiga maxaa qabtaa ka shaqeysaa markaas MCA jooga hadda macaan iskuulaan ah marka subaxaas aroor hore ma ahayd xilliga hore 2 saac bar hubuu ku tusama jirin miyaa kugu dhacay way hubka kan kala anta ku sunayd hub mana tusan laakiin hub ee ma tusan magaca hay'adu ku sheegtay ha magaca hay'adu ii sheegay anna saasan ku aaminay markii hore magacaas lagu dhacay marka dambe adle markii dambe ana qabtaba oo iriyo adiga waa tuuga tahay hor qabo waa ka shakiyo marka hor ma igu soo celinin isku ugu ahaay tooso ii daba galay aniga jigboontiga geey soo iiga orday marka hor kale ma gelin ciidanka irniyoon kan ii haaya tuug hadda ka hor dhacay waa ciidankan iska warqabin oo is aqoon labadeen laakiin ani tali kooxan aqaan tali kooxyan wacay aan dhahniyo ninkii hadda ka hor kiiskiisa ay qabatay oo taleefanka ay qaadaan haaya ay imaw maalinkaas asmi joogid ciidan way soo diray sidii ku wareejin kiiska noocu ka dhacay taleefanka maxaa 15 qofka inta ku jiro oo maalinta kula socdo asma maxaa laga qaatay taleefanka laga qaaday maxamed Cabdullah oo jooga miya waa jooga markaan adiga markaa qabeysay horka dhayso nin qarwad ma askari tadig isbitaal banaadir ilaa jigboontiga war ma igu soo celinay oo been ay sheegay been ma ka sheegay waxa ay hor qabo muuqaal hore oo meel kale loo duubo haafa ninka meel baa wax ku dhici jiray aan lahayn muuqaalkii marka sida lagu tusiyay marka meesha aan geeyay sidii uu ku qabtay laakiin intii aan jigboontiga u waday war ma igu soo celin waa hor qabtay 3 bisha 6 taariikhda markay ahayd ani yarkaan oo socon oo seminar u socono marayno dhabarka dambe ee beerta banaadir anagoo socodkeena ku jirno waxaa gadaal loogu yimaaday ninkaas Siraaj wuxuu dhahay istaaga waa idinka shakiyoon dhahay waa istaaga anaga wuxuu dhahay waxa ciidanka amniga ah dhahay amniga sugaa waa idinka shakiyo waayahay dhahay wuxuu sameeyay telefoonada baaraas ii soo dhiibo labada telefoon oo ay qaaday yarkaan kale toobtay anigana waxa ila intii ugu sug oo ku soo laabanay meeshii ku sugaadaa baar 30 daqiiqo camal meesh fadhiyay موسى يسوع الله ولي كان يركان كله توته أنا كان ماشي سأقول فدي مركز دم بيتاسو يستاجي مركز لا صوفي لأنك ماشي وكم حنا وواي من غير يسوع يركان وموسى صار نقين أصلا يركان كله تويل سعد وموسى صار نقين عبارة مركز ماشي فدي كذب أو حقيقي ما ده أصلا يركان تو لو سوي أساس سعد كذب عسمين إيش وحاو كاميرا كده بعد كاميرا مش كده كاميرين كذي لا قريب فيديو اللي بارا هالله سيديا فيديو اللي كباري أنا كان محوا مركز كده بحالي داس كسبة حالك صواب عادي ليه كوي لو أتنك بيش سيديا اللي صواب وحالي دانك يا الله هاي كله واي ما هذا يركان مش في مركز واحد مش كجرو واقوم صد بس هو عندي كتلف كي قاعد أنت سوي ما حقبتها ما حكش عشان أنا ما حكش كي MCH مركو موبايل قاعد ما حكوش يقوي ما حكوا ليه هو يصير كده إنك نوسود هاي إنك نوسود أو هاي تلف كاغ وبارا وحدي وبجلاد يسوي رجل وكاشكية مركانه حكوسيا بين يركان كده إلى السعودية وت مركان دو قف نول كاوت وحدا تلفن و سكان سيدي أكو أبيني ويصلا منك مركد ما يصلا ده صدق دقيقة عمل مش في دي يصلا وني أنت فريسو كوصلا ما كراسي ها كرسي ماشي يلا إذا أكو فريسو أصلا قناة وده أنتوا هذا مركز تسيق وهو هذا وده ماشي باريستان هذا وده تلفنين صبارة أنتوا كبار ده ودي يركان كلاوتو إن كان أوتو ده محا تلفون ما تقف كان كاوته يركان كلاوتو مركا وتنوع من كواس كفريست أنا كشكي ما لوق ولا قبل ممكن جوات عبارة صراحة ما أنا أركي أنا مش كبير نوع على قاعد نوعه تلفون لحيتون eedeysana Siraaji Kuusow xariif magaalo oo qiraal ah ayaa garsoorka u waramay isna Siraaji waxa dhacday Zakariya Yunis dhacday adoo iska dhigay inaa ciidan ka mid tahay waa baaraha ku dhacday telefoon nooca oo Samsung kan waa ka dhacday eedaas ma gashay mise ma galin dooda ka qabtaa dooda ka qabaa aye noo mid ay jirto aniga gabar dhalata aad u xanuustay markaas iyadana wax qarash ma hayn marka jacayl ciidanka aan jeclaa awgiis anoo ciidanka jeclaa anigana jeebkay oo wax la'aan ahaa
marka waxaan suubiyaan garan waaye si xeeladan wax ku qaatay waan weligeen waan jeclaa askarina oo suud inaan noqdo marka waxaan jeclaan lahaa in xafis liisiyo arrintaas iyada laga odeeyo inkastoo qalad ay ugu tahay inaan hay'adda faareed aan galo laakiin duruuf ay ugu liftay gabadha aan reer baa curud u ahay gabar anaga ila dhalatay aad u xanuunsatay hooyadeena waa dhimatay aabeena gobol uu joogaa biyo iska shiidaa xulbadu shiidaa asaga xataa xumaaysto qof iska xanuunsan waa marka gabadha ila dhalatay xaaladdeeda ay noqotay lacag u baahanay dhahday marka saasi wax u dhacayno adiga maxaa ka shaqaysaa aniga dhismo caruur ma lihido iyo islaan maya islaan waa lahay laakiin waa kala tagnay laba maraaxaa soo guursaday waa ilmiyaa ku soo halaabay qofkan maxaa see wax u dhaceen qofkan waa u imaaday waa kaashikiyaan dhahay adi maxaa tuu dhahay askariyaa dhahay nasuuda taleefon baan ka qaaday halkaas meeqa mar asaas yeeshay maya wax hore ma jiro markii ugu horeyso waa markii ugu horeyso mobilka waa kaashikii mobilka waan baarayaan dhahay waa baaraha tiri haye mobilka waa ii dhiibay marka sidii aan ku qaatay aniga mobilkii waan gatay mobilka marka waan gatay Soomaa waa gaatay lacagtii abaayaan u tuuray qaarna anaa qaatay intee laga hayay abaayada yaa intee laga hayay intee xanuunaysa abaay saaid kaliya xanuun badan ahay adiga inta ku dhalatay xamar haddaa ku dhalatay haddaa ciidanka jeceshaas waa geli karta ma dhowr mar waa jirtaa oo ani ciidan inaan noqdo aan isku dayay iskool booliisiin aan tagay oo la dhahay waa buuxsantay qoraalkii nacnac mar aan tagay xataa waa jirtaa marka ilaa haddana waan jeclaa inaan noqdo marka haddaa la baxda oo mobil gaartay intee goorme lagu xiray marka maya falkii markuu dhacay lama soo qaban aniga haye bishii lixaad uu falka dhacay bishii lixaad ahayd bishii 21 waa la soo qabtay oo ninkii aan wax ka qaataas aragnay aniga aseebi aan isku aragnay laamiga isku aragnay maal cadiya ka qaatay ma qofka maal cadiya ka qaatay falkii maruu dhacay ka dambe maxaa isku aragnay laamiga way qabsaday noo maxaan dhaa walaalo waa jirtaa waxaan dana ii geysan dhaa iska kicay walaalka waa ahay tani waa sumcadil ciidamada iyo eeda kale ayuu fadhigan ka jeediyay xeerlaaliye dhambe Bashiir Cabdi Macalin hadda maxkamadda dhexdeeda wuxuu ka leeyahay jacaylan ciidan u qabaan u dhacay ciidanka wax ma u dhacaa gaf kale waa shalay wuxuu galay shacabka u dhacay oona u geysta dhac hantidoodana qaatay sidoo kale wuxuu ka faa'iideystay nuglaashada shacabku ay u nugul yihiin hay-adaha amniga inay dhegaystaan ay warkooda maqlaan oo ka faa'iideystay wuxuu sumcad dilay hay-adaha amniga oo ka dhigay wax dadka baarta isla hadda wuxuu leeyahay jacaylan u qabaan u dhacay ciidannimada jacaylan u qabaan shacabka u dhacay oo la taagan yahay qareenka ayaa isooristaa ka keenay eedaha xafiiska xeerlaalinta iyadoo ku dooday in aan la caddayn ka mid ahaanshiyo argagixiso iyo isu ekeysiin xirashada reeska ciidamada ah waxaana ay codsatay in galkan loo wareejiyo maxkamadaha kale ee awoodda u leh qaadistiisa xaalad kasta oo maraya dhageysiga dacwadda mudane gudoomiye mudane garsoore is-hortaagaygu wuxuu waafaqsan yahay qodobka 105 farqadiisa koobaad ama farqadiisa labaad xarafkiisa B ama xarafkiisa A mudane gudoomiye mudane garsoore is-hortaagaygu wuxuu ku saabsan yahay ikhtisaaska maxkamadda kiiskan mudane gudoomiye mudane garsoore markii laga hadlaayo ikhtisaaska awoodda maxkamadda waxaa la soo jeedin karaa xilli alaale xilliga dacwadda dhageysiga lagu jiro inta aanan 119 lagin ama aan la gabagabeynin sababta is-hortaagayga waxay ku qadantaa marka mudane gudoomiye mudane garsoore eedeysanaha qareenku ahay in aanan la saari karin ama aan la qaadi karin dacwadiisa maxkamadda ciidamada inaan la saari karin sababaha soo socda dartood mudane gudoomiye mudane garsoore qodobka 4 iyo qodobka 7 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa waxay dhigayaan in ikhtisaas la'aanta awoodda maxkamadda xukunka soo baxa ay ka dhigayso waxba kama jiraan ayna tahay sharci in la dhowro mudane gudoomiye mudane garsoore qodobka 4 la akhriyo qodobka 7 oo ikhtisaas ka hadlayo marka ka gudbo maxkamadda ciidamada cidda lagu qaado iyo cidda tahay in lagu maxkamadeeyo xeerka maxkamadda xeerka ciidamada qalabka sida sheegayo markii laga hadlay Siraaji xafiiska xeelaalinta wuxuu ku soo eedeeyay 383 iyo 484 383 mudane gudoomiye wuxuu ka hadlayaa iska dhigis qof markii qof uu iska dhigay ma jirin ID card oo nabad sugidda leedahay uu sheegay baarihi ma jirin hub oo ciidan oo dawladda leedahay adeegsaday sidoo kale ma jirin darees ciidan uu gashtay si uu isaga dhigo markay aadaan nabad sugidda kaliya afka ayuu ka sheegtay inuu yahay
hay-adaha sirdoonka isla markaana uu sameeyay khiyaano ama inuu qaatay hanti dad kale leeyihiin 383 marka maadaama uu yahay qof shacab oo hay-adii sirdoonka ay cadaysay inuusan ka tirsaneen si lamid ahna aanan la keenin hub iyo darees iyo ID card uu isticmaalay kiiskan waxaa ikhtisaas u leh maxkamadda rayidka ama maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadan waxaa ka codsanaya inay u wareegiso una gudbiso maxkamadda gobolka Banaadir si eedeysanaha loogu maxkamadeeyo qodobka 383 oo iska dhigida ah iyo hantidii dadka shacabka ay qaatay ma aha in maxkamadda ciidamada la keeno cidda lagu qaadan xeerka ciidamada sheegay maxkamaddu waa maadsanta xeeraaliye Bashiir Cabdi Macalin waa soo rogaal celiyay isagoona ka dhawaajiyay in ciidanka la matale aysan qaadan wax darees ah iyo hub muuqda isagoona soo jeediyay in dacwadda la sii wado ha ahaatee waxa uu iska dhigay gaar ahaan ilaalada shacabka mana qaataan hub mana qaataan darees sidoo kale qaarkood ay dhikaar xataa ma laha si uu u faa'iideysto shacabkana u dhibo una sumcad dila ciidamada noocaasa ilaalada shacabka cidii magaalada martaa taqaano qof dadka ka taqaana ma jirto waa dad iska caadiya waliba xirfadoodii u isticmaalay qofka markii ay arkaan oo ay qabtaan ayay waxay dhahaan taleefankaaga la baara waa la sawiraa guruubo ay leeyihiin iyo kuwa ayaa dadka la dhigaa qofkii la aqoon waaya la yiraahdo markaas waa laga shakiyo qof waxa uu iska dhigay ayagii waxa uu isticmaalay xirfadoodii isla shaqadoodii isla waxay qaban jiraan tilaabtay qaadaan oo la qaado ninkaas waxaa dhibana ka sokow shacabka Soomaaliyeed mar labaad hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka mana ahan inay maxkamad reed ka garnaqdo mana fahmi karto oo mana taalo waxaan maxkamadda ka codsanaa inay qareenka ku diido is-hortaagiisa aan gabagabeyso dacwadiisa maxkamaddu waa mahadsanta guddoonkii waa amray sii socoshada dhegeysiga baraha sirdoonka qaranka uga wakiilka ah galkan ayaa isna la dhageystay natiijada macluumaadka baarista ku-xigeenka xeeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme Bashiir Cabdi Macalin ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha lagu qaado qodobada eedda si aan mar kale loogu dhiiran falka nuucan ah waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadarin leh kaga codsanaynaa in eedeysanaha maxkamadda hortaagan maadaama aan cadaynay isaguna oo qiraal yahay inuu iska dhigay ciidamada inuu sumcad dila ciidamada inuu dhacay shacabkii inuu mar labaad ciidamada oo sumcad dilay oo maxkamadda mar labaad ka hor yiri jacaylan ciidamada u qabaan shacabka u dhacay waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadarin leh kaga codsanaynaa si aysan u dhicin in la aamini waayo ciidamada 24 saac ay jidka taagan yihiin waxay u taagan yihiin inay sugaan ammaanka shacabka magaalada ama shacabka Soomaaliyeed aaminaad ciidankaas magaca nisa ilaalada shacabka dharcad la aaminayay yaa loo isugu dhiibay loogu dhiibay hantidooda ugu dhiibeen waa u gambaday si aan dadka sidiisa ah ama dadka isaga la midka ah aysan ugu dhiiranin si ciidamada aan looga aamin bixin oo qofkii ciidan aan ahay yiraahdo oo ciidan u ahaado waa ima inuu wajaho ciqaab adag waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadarin leh kaga codsanaynaa in eedeysana ay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay oo lala akhriyo 39 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waa mahadsantahay qareenka eedeysanaha ayaa maxkamadda ka codsatay in muwakkilkeeda loo qiimeeyo duruufta nololeed ee haysata isla markaana ay ku weyso dembiga mudane gudoomiye mudane garsoore markii aan ku hormaro si waafaqsan qodobka 162 oo ka hadlayo shakhsiyadda eedeysanaha in laga hadlo ka hor dembiga iyo kadib dembigaba mudane gudoomiye mudane garsoore ma jiro record dembi oo eedeysanuhu leeyahay oo xafiiska soo bandhigeen maxkamadan lala wadaagay wuxuu ahaa ka hor falkan muwaadin iska xamaasha isla markaana dhoora una hogaansama shuruucda iyo nidaamka dalka ka jira mudane gudoomiye mudane garsoore muwakkilkayga ama eedeysanaha maanta maxdarka dacwadda garmaqalkiisa la qaadayo xafiiska xeerlaalinta wuxuu kusoo eedeeyay dhowr qodob oo kala duwan waxaan rabaa anigoo sharciga iyo habraaci tilmaamaha looga rabay in la dabaqo ka aadaya waxaa rabaa inaan falanqeyn yar ku sameeyo qodobada eedda iyo tiirarka dembiga xiriirka ka dhaxayn karo iyo eedda qodobada uu ku eedeeyay xafiiska xeerlaalinta iyo dhacdadu ma isqaadan karaan mise ma isqaadan karaan si marka muwakkilkayga loogu eedeeyo dhacdada maxkamadda horteeda laga sharaxana aan ul u fiiqno mudane gudoomiye mudane garsoore ma dhameystirmay tiirarka qodobkan ee aan sheegay ee ugu horeyso in la adeegsado xoog dhibanayaal ay imaadeen mudane gudoomiye mudane garsoore sakariye iyo yar kale dhibanaha imaadeen uu xafiisku sheegay in dib loo geystay maxdarka dacwadda waxay ka sheegeen oo gudoomiyihii garmaqalka weydiiyey hub lagu la soo baxo lagu adeegsado ma jiray maya
xoog lagu adeegsado ma jira maya wuxuu sheegayba in kursi loo dhigo la fariisiyo la yiraahdo sii naso in aan la jir dilin dib kaleeto loo geysanin la cambuusin la yiraahdo meeshaan fariisiyo ku naso hantidiina laga qaato marka sidee loo dhihi karaa 484 loo geystay oo dhaca ma jirin tooree la keenay baarihi wuxuu yiraahday tooree lagu soo qabto ma arkin qoray lagu soo qabto ma arkin biskoolad ma arkin dhibanayaashu waxay dhaheen ma arkin oo nolol kuma handidin intaas oo huba xafiiska xeer ilaalinta marka dhibanayaasha dhibka aysan sheeganaynin oo isagu arkay maxay tahay mudane gudoomiye mudane garsoore hubka uu sheegayo leeyahay dhibkan waa loo geystay dhibanayaasha hadii loo qaban yaa loo qabtay hadii baarihi uusan la kulmin uusan arkin maxay ilaaliye kaliya arkay waa may mudane gudoomiye mudane garsoore markii laga hadlaayo buugga xeerka ciqaabta 565 article ka kooban yahay waxaa loo baahan yahay dhacdada iyo qodobada eed inay isku sidkanaadaan xogta dhacdada ama falka dhacay wax yar hadii aan la fiiriyo tirarku way iskala duwayaan marka qofkan si qodob walba ciqaabta ku xisan oo u qaato dhacdada iyo qodobka halis waafajiye sharciga sheegay oo faray mudane gudoomiye mudane garsoore marka maadaama aan la cadeynin in hub la adeegsaday cidii loo adeegsadayna ay tiraahday ma jirtaba hub aan la tusay oo nal ku qabtay sidaasi darteed mudane gudoomiye mudane garsoore waxaa gabi ahaanba meeshaas ka baxaayo qodobka 484 oo maba jiraba wuxuu isticmaalay muwakkilkayga afkiisa miyaa hub ula muuqda xafiiska xeer ilaalinta wuxuu sheegay inuu aragtidiisa ku qanciyay uu yiraahdo laamaha amaanka ahay isla markaana mobilkiisa waa laga shaqeeyay waan soo baaraa mobilkiisa ka qaatay waan ka tagay awood kale uu isticmaalay ama dhibaato kale uu gaarsiiyay ama waxyaalo kale uu gaarsiiyay ma sheegin baariina ma sheegin dhibanayaashiina cadaalad dalbanayna ma sheegin sidaas darteed qodobka 484 mudane gudoomiye meesha ka baxa xeer ilaaliyaha waxa uga dhaweey inuu 496 aado oo ah turuufo qof hanti in laga la wareego iyadoo markaas la qaldaayo ama wax warbixin kale loo sheegayo waxa kale oo kaga filnayd xafiiska xeer ilaalinta intuu 484 aaday 383 inuu ka ekaado oo ahayd iska dhigis qof wuu qirsan yahay muwakkilkayga inuu hay'adaha ammaankiisu ka ekeysiyay inkastoo aysan dhameystirmin waliba isku ekaanshiyeesha ama iska dhigista qofka 383 uu sheegayo sababtoo ay dhikaar nabad sugid leeyahay ma isticmaalin darees markaas ma isticmaalin qaabkii iska dhigaan iskama dhigin kaliya xaalad ama saacad kooban ayuu hadlay hadalkiisuna yiraahday hay'adaha sirdoonka ka tirsan markii laga soo tago ma jirin darees uu isticmaalay dhikaar uu sameystay goob markaasi ay fariistaan ama astaan kale leeyihiin oo isticmaal ma jirin loogin leeyihiin ma isticmaalin afkii ayuu ka sheegtay bis sheegashada afka marka mudane gudoomiye mudane garsoore 383 maba dhameystirayso marka 383 maadaama muwakkilkaygu uu yiraahday waa qaatay hantidan falkaana xaaladana aan ku qaatay 383 iyada ciqaab leh qodobkaas ciqaab uu sheegaya waliba wuxuu leeyahay qofka markuu iska dhigo qof kaleetood uusan ahayn isla markaana macaash sharci dara ah helo macaashka sharci darada oo hantida uu qaatay 383 ugu filnayd muwakkilkayga in lagu eedeeyo xeer ilaaliyaha isagoo uu sameeynayo ka badbadin ayuu wuxuu sameeyay inuu 484 oo aanan waxba cadeyn ah oo marag muujin loo haynin tirarkeeda dhameystirmin inuu muwakkilkayga ku eedeeyo mudane gudoomiye mudane garsoore markii aan aado qodobka 119 ee gabagabadeeda mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh muwakkilkayga wuxuu maxdarka dacwada ka sheegay si niyad samina u qartay in xaalad duruufeed ama xaalad nololeed ay haysatay isla markaana walaashiis oo xanuunsaneed lacag uu u baahnaa awgeed uu u dalbaday inuu hantidaas qaato wuuna sheegay inay sharci daro tahay hanti qof kale leeyahay inuu qaato sidoo kale laamaha ammaankan in la isku eegaysiiyay inay sharci daro tahay uu sheegay laakiin xaalad nololeed uu ka foqsin karin inay haysay isla markaana halkaas uga isticmaalay hadii la dhihi lahaa baabuur ku kireystay magaalada ku tamashleeyay waxyaabo badan uu ku sameeyay waxa la leeyahay waa tuu ku soo bareeray hanti dadka inuu maalin kasta dhaco laakiin maadaama duruuf nololeed ay haysay qodobka 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu ogol yahay mudane gudoomiye mudane garsoore marka eedeysana la ciqaabayo ama qodob lagu soo eedeeyay la rabo in ciqaabtiisa la saaro in maxkamaddu ay qiimeynayso duruufaha ku gadaama qofkaas eedeysanaha ah markuu dambigan geysanayay xaaladiisa nololeed shakhsiyadiisii duruufihii ku xirnaa intaba maxkamadduna waxaa ka codsanaya in qodobkaasi ay u qiimeyso maadaama uu sheegtay duruuf nololeed sidoo kale doodna ay ku weysay maxkamadda qodobka 484 xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyay oo aanan wax cadeyn ah marag muujin loo haynin sidoo kale mudane gudoomiye mudane garsoore wuxuu muwakkilkaygu sameeyay fariin amni oo ah in hay'adaha ammaanka la isku ekeysiin karo iskula ekeysiin karaan kooxaha argixisada ama nabaadiidka iyagoo markaas xaq ka raba dadkii kaleetood ee muwaadiniinta ahayd caqabadayn karaan muwaadiniinta inay u hoggaansamaan awaamiirta hay'adaha amniga waa sax waana sharci laakiin inay iska feejignaadaan oo ay sameeyaan cidda ay xogtooda ama sirahooda la wadaagayaan inay yihiin laamaha ammaanka in kale inay ogaadaan lagu soo dhex dhuuma karo laguna sameyn karo carqaladeen
taas fariin ah ayuu dirayay sidoo kale mudane gudoomiye mudane garsoore laamihii ammaankana way ku baraarugeen oo hay-adii sirdoonka ma dhici doonto mar kaleetood in markaas la isku ekeysiyo ama qof shacab la yiraahdo hay-adii sirdoonka ka tirsan asigoo aan iska xaqiijinin taas mudane gudoomiye mudane garsoore markii laga soo gudbo maxkamadda sharafta waxaa ka codsanaya muwakkilkayga inay ku weyso qodobka 484 uu xafiiska xalaalinta ku soo eedeeyay uuna keeni waayo cadeymo muujinayo oo waafaqsan qodobka 110 163 qodobka 383 ay u fiiriso ciqaabtiisa qodobka 110 oo sheegaya in la qiimeeyo duruufaha ku xeeran qofka muwaadinka markuu falka geysanayo maxkamadana xoriyadiisa u celiso maxkamadana waa maasanta eedeysane kuusow oo fursad loo siiyey inuu maxkamadda la hadlo gebagabada galkan ayaa codsaday in maxkamadda ay xaliso islamarkaana ay ka bixiso hantida maqan ee loo haysto sidaa jahay mudane gudoomiye maxaa ka fahantay dood dhegeysiisamo waa dhegeystaa haye yow aniga horta saa wax u sheego waa waxaan duruufa ii geystay marka nin dhalinyaro qalad galaa ma fahanti marka haddana maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay arrintaas iga xaliso say waxa leeyahay macna waxaan leeyahay teleefanada ka qaad dadkan ما maxkamadaaba ka codsanaaba inay iga bixiso iga xalis arrintaas iyada Kenya ka timid miya maxaa dhacday qax ee wax inuu dhacay hadda ka hor yacnaha oo xagga aan aadnay oo xagga aan soo joognay buufs Mareykan wax saas intuu mar noo soo baxaya imtixaankii aan ku dhacnay marka inuu maxaa jiro ani abti waadan oo dibadda jiro oo aniga dhalinyarna waa ogtahay waqtigan la joogo balwadi iska isticmaalaan marka dhowr mar ila hadlay balwadi iska dhaaf u dhaaniyo tabliiq waxa iska raaco xal badan aan ku qabanaa wallahi kulleeto ayayaa xanuustay xaaladaysa ay noqotay dhoble meel la soo degnay dhoble sidaan u joognay hooyana way nooleed markaas hooya saayid u xanuunsan doonto ismaaya imaana marka milki kulli ismaaya markaa imaanay cid abtaani ugu aadanaa hay'ad iyo wax saas haystay cabdi jeelaal la reek ismaaya waa hay'adiyaan ka shaqeynay $200 bishi qaadanay ayadiyaan san u soo wado $150 si jir $100 ana kareeban jiray $150 ayay hooya kala goosan jireen hooyo way xanuustay xaaladaysa ay noqotay way dhimatay daryeel hospital meel Kismaayo ku taalay ku dhimatay anaa ka duceystay hooyo waa aasay ka dambe haddana ayaa dhiikaris koray qabtay dhiikarkiis kortiya Breles ka dhigay Breles markuu ka dhigay ka dambe maamada xanuunkeeda saayid ay noqotay abtiya muxuu dhahay habarra ili jirtay markaas yani ilma ay habarraana abti muxuu dhahay xamara loo qaado dhahay maamada xamar hawadeeda u fiicana xamara sidii ku imaanay Dimir hospital meel laha geynay xaaladdeeda saayid ay noqotay asiga xamar maad markii wuxuu dhaaniyow maamada xaaladdeeda saayid waayo hindi aan qaadaya u dhahay soo ninkaas sheegay hindi waxa maqlaysaa mulaa hindi loo qaaday hindi markii loo qaaday maamada 2 isbuuc markii ku jirtay okay noqotay ka dambo tiribal ma celin karo meeshii ku gooday maamadii maxaa dhacday marka intii maamada la qaaday oo hindi ii jirtay aabeeyaan u baxay ayidii aabaha hadan u tagay ayidii aabaha haddana aan ka soo duceysto cabaar aan la soo joogay cabaar markaan la soo joogay ka dambo markii aan soo baxay oo la idhaay tacsida ayidaa hooyaa dhacday markii la idhaay oo xamar aan saan u maaday haddana maxaa la idhaay ayidaa aabaa dhimatay haddana waxaa meeshaas ku wada kulmay 2 tacsi marka wallahi mudane gudoomiye xaaladii saas waa in aan duruufo saayid u soo koraa ahay ma fahanti marka maxkamadda waxaa ka codsan lahaa inay arrintan iga xaliso tabliiq hadda waa inaan raacay aan horta balwada isticmaalay aan ku dhumay wax yar adoo raaliya hadda balwad ma rabo ما قبل هذا حرنا من القدومي أنا قاعد استعمال الجري سيارة استعمال الجري أحكي لهم استعمال الجري هذا مرة بو سأقول روح بنا المار موجود ما من القدومي والله بلا ميدب كان أنا أقص ميدب يا صباحي مرة بعد هذا نعبي هذا أرك والله سن كان قبل سنة مرة بينا كل نقطة هذا أنا وداد نقطة ما شاء الله هذا السؤال تكونه وذكرت لي اللي بدني وأحكي له أول كلام بالله هذا أنا بسالة تبليغ وآية خميس كيا هوريك سيجي سنة أي عمام الجداد gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray